السلام عليكم. muuqaalkani maanta waxaan kaga hadlaynaa buug aad iyo aad u muhiima oo ka hadlaya caadada laga yaabo inaad adigu xataa isku aragtay oo ah hawl dib u dhigista ama procrastination waxaa lagu magacaabo oo ah inaad sugto uun waqti ku habboon oo is leedahay hawshan mar unbaad qaban doontaa laakiin ay kugu qaadato maalimo iyo bilooyin baad adigoon weli hawshii qaban. qoraaga buuggan Brian Tracy wuxuu ciwaankan raha u soo qaatay ama Eat That Frog wuxuu ka wadaa hawshan kugu adag aad is leedahay hadhow baad qaban doontaa ama berri baad qaban doontaa ee aad kolba dib u dhigaysid. waxaan soo bandhigay 11 qodob oo kaa caawin doona inaad procrastinationka ama hawl dib u dhigista iska dayso ama sugidda waqti ku habboon oo aad hawshan qaban doonto. dhowr qodob ayaynu ka soo qaadan doonaa inta xigtana waxaan idinkula talinaynaa inaad buuggan soo akhrisaan intan maanta muuqaalka ku sheegi doono iyo ka badan baad ka faa'iidi doontaan hadduu ilaahay ka dhigo isagoo PDF ana descriptionka ama commentiga hoostaan idiin soo dhigi doonaa linkiga xaggaasaad kasoo download garaysan doontaan. haddaynu bilowno qodobka koowaad Brian Tracy wuxuu leeyahay haddii lagu soo dhigo laba rah oo lagu dhahdo cun kooda ugu foosha xun ku bilow oo kooda ugu foosha xun hor cun marka hore. macnaha wuxuu ka wadaa haddii laba hawlood oo adag ku soo wajahaan tooda adag ku bilow ta jilicsanna ku xigsi. qaabkaas waa qaab kaa caawin doona inaad procrastinationka ama hawl dib u dhigista iska yarayso. haddii kale laakiin hawsha jilicsan aad ku bilowdo oo enerjigaaga oo dhan aad ku bixiso hawshan adag markii soo hadho saad kolba berri ama saad dambe dib ugu dhigdhigaysa laga yaabaaba inay bilooyin ama sanad daba qaataan. markaa ku bilow hawsha adag ta jilicsanna ku xigsi. qodobka labaad wuxuu leeyahay Brian Tracy haddii rah nool lagu soo dhigo oo cun lagu dhahdo ha farsan oo ha eegin in badan ee markii ficil samee oo cun. hawshaas aad ka labalabaynaysid aad leedahay berri baan qaban doonaa hadhow baan qaban doonaa waxaa keenaya waxaasoo dhan waad ku dul fikiraysaa intaad fadhiisato looma baahna taas. haddii tusaale ahaan aad buug soo qaato aad buugga rabto inaad akhriso markaad miiska soo dul fadhiisato ha ku mashquulin waxaa kale miiska saaran ama buugga coverkiisa maanta dhan ha ku mashquulin ee buugga kala fur markiiba bilow oo ficil dhaqsiya qaad si aanay naftaada u marmarsiyon oo aanad buuggaba iskaba dayn. qodobka saddexaad Brian Tracy wuxuu leeyahay a goal without deadline has no urgency. tusaale ahaan buug waxaa soo iibsatay 100 page haddaanad qorsheynin deadline-kiisa ama waqtiga dhammaynaysa buuggan waxa ubaalin kugu qaadan doonto bilooyin inaad dhammayso buugga. marka hadaf walba samaysatay soo kale u samee waqti aad rabto inaad ka gungaadho taasaa kaa caawin doonta inaad procrastinationka ama hawl dib u dhigista iska dayseedan. qodobka afraad pressure saar naftaada oo ku cadaadi inay hawshan qabato ama ay rahan cunto. haddii kale laakiin intaad fadhisataad maanta dhan rahan ku horyaalla eegto oo sugto inta yalaalugay mata ku qabanayo hawshan waxaad u dhigi doontaa berri oo waxaad odhan doontaa berri baan cuni doonaa. markaa pressure saar naftaada oo ku khasab inaad hawsha balowdo ficil dhaqsiyaana samee. qodobka xiga Brian Tracy wuxuu leeyahay intaanad bilaabin hawshan kugu adag ama hawshan aad ka labalabanaysa intaanad bilaabin ka hor diyaarso wax walbaad u baahnay si aad hawshan u qabato. tusaale ahaan buug baad rabtaa inaad akhriso diyaarso shahaagii aad cabbi lahayd marka intaad buugga akhrinayso buuggii kale noteska ku qoran lahayd iyo qalinkaaga wax walba sii diyaarso iskana fogo wixii ku mashquulin lahaa sida mobilka oo kale. qaabkaasna waa qaab kaa caawin doona inaad procrastinationka iyo waxaan hawl dib u dhigista iska yarayso. qodobka xiga wuxuu leeyahay si qorshe waxaad qaban doonto ama habeenkii qorshe waxaad berri qaban doonto 1 daqiiqood ku bixiso qorsheynta waxaad qaban doontaa hadhow ama berri waxaad sabgarayn doontaa 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo oo aad marmarsiyoon lahayd. qodobka xiga wuxuu leeyahay do what you can with what you have where you are. marmarsiyaasha ugu waaweyn aan sameyno waxaa ka mid ah inaan nidhaahno markan meel habel tago ayaan waxaan qaban doonaa markan miis helo ayaan wax akhrin doonaa markan saan sameeyo ayaan waxaan qaban doonaa. waxaa hubaalay inaanad waxaasoo dhan haddii lagu siiyo aanad qaban doonin hawshaas haddaanad maanta qabanin. waqti ku habboon wax la idhaahdo ma jiro taas meel ku qoro. perfect time wax la idhaahdo ma jiro oo maanta waxaad qaban weyda berrina ma qaban sidoo hubaal. qodobka xiga wuxuu leeyahay subaxdii marka soo kacdo ku bilow inaad cunto raha kuugu qareedh. macnaha hawsha kuugu adag aad ka labalabayn lahayd ku bilow subaxdii sababtoo markaas energy tahay. buuggu intan kuma eka waxaan hubaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto oo ka badan intan muuqaalkan kaga hadalnay isagoo PDF ana kasoo download garayso descriptionka hoosta ama commentiga. muuqaalkani maanta waxaan ugu talagalnay inaan barano buuggan intaas aan ku eegi fadlan hadduu ka cajabay subscribe sar. wassalaamu calaykum.